meedka hooyadeed oo aan weli la aasin sariirtana saaran ayaa waxa kufsaday abtigeed. afku igu dhigay uuna i kufsaday abtiyo lama aasin badee soo guriga baaba lay keenay meedka lama dhaqin lama aasin markaas bay dhimatay. way ooynaysaa oo ay ilmeynaysaa laakiin dadku ma dareensano waxa u dheer dhibka iyo dhimashada hooyadeed. marka abtiyo markuu sidii igu sameeyay dadkoo dhan degariday ku mashquulsanaayeen aniga waan muraar dilaacay waan naxay yacni waxaan sameeyay waan garan waayay. markii hore waxay la barooranaysay waxa dhimatay hooyadeed qof walba hooyadii dhintana waa qasab oo waa uu ooynayaa laakiin markii dambe laba ilmood oo kala duwan ayaa ka socotay. midna waxay ahayd hooyadeed oo dhimatay midna waxay ahayd gabarnimadeedii ay waysay iyo kufsi lagula kacay isla habeenkii hooyadeed ay geeriyootay oo ay sariirta saarneed weenana aan la aasin. geeridu wayba taalaa meedka lamaba qaadinba waa ooyay waa baroortay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دنيا ملك سواد كجوكتن كسر دوّد الصحاف هي مقال عصب مقال كان هو كد وين هي مقال هذا كله ومعجزه واللياب ووح هذا مقل كرين هدي أد مقاشنا إن أتسير دقيسته أما دقها أتسيسيسو أنا يدمر ككسينين وجبر سوماليين أو حنون كوجونا الدون ككل عي ولو قدرت ربي أي تهي لكن أي أسيبتي حنون كله أو كل معنا كي كدعي وجبر سوماليين أو هويدات جيريوتي iyadoo meedka hooyadeedna uu saaran yahay sariirta la kufsaday qof sida uga sii fogna uusan kufsan oo waxa kufsada uu yahay abtigeed. maalmihii iyo barihii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanayo arimaha ku aadan gabdhaha baraha bulshada imaanaya ama la wareysanayo oo ka sheekeynayo dhibaatooyin ku dhaca dhibaatooyinka xilliyada uu ku dhaco iyo xilliyada ay arimaha ka waramayaan ayaasa waxa ay yihiin ayaasa ah kuwa u dhaxeeyo waqti aad u fara badan. dad badan ayaa la yaaban sababta kalifta inta ay boodada qoyan tahay sababtoo ah boodada qoyanka lagu qabtay aanay gabdhahan u sheeganeen dhibaatooyinka ku dhaca oo bilooyin iyo sanado kadib ay arimaha uga hadlaan. gabadhan aan ka hadlayo waa gabar hooyadeed geeriyootay markii ay ka war heshay geerida hooyadeed oo hinbays celin weyd way barooratay wax walbo oo uu dareemo qof waalidkii dhintay ay dareentay. ilimada way qubanaysaa oo daqiiqad ma aysan ka joogsan sababtoo ah waxa dhimatay hooyadii dhashay sagaalka bil foolatay xanuunka la soo martay soo korisay dhibiya dheef la soo martay oo ah qofka ibn aadanka meesha kaliya oo isku haleeyo oo uu aaminka ku qabo isla markaana uu ku kalsoon yahay. meedka hooyadeed sariirta ayuu saaran yahay way ooynaysaa familkoo dhan ayaa barooranayo ilimadii hooyadeed dhimashadeeda waxa ugu darsamay ilimo kale oo ah in hooyadeed oo meed ah oo sariirta saaran in abtigeed uu kufsado oo uu faraxumeeyo xoogo isla markaana uu yiraahdo waliba cidnaha u sheegin isagoo saddex qodob ku harowsanayo midna uu leeyahay waan ku wadayaayo dibadda ayaan ka imid midna uu leeyahay nolosha cariiriga aad ku jirto waan ka saarayaa midda kalena ay u muuqatay hanjabaad oo ah dhib kale inuu u geysanayo haddii ay hadasho. waxaan aragnay gabar leedahay aabahay ayaa ilmo iga dhalay kufsaday xoogay muddo haystay sidaan yeelay. waxaan aragnay gabar tiri adeerkii ayaa kufsaday muddo sidaan san igu sameeyay. waxaan aragnay gabar abtigeed ka hadlayso. waxaan aragnay gabdho fara badan oo wiilal Soomaaliyeed ka cabanayo oo aan wax cilaaqaad family kala dhaxayn waxyaabo aad u fara badan ayaan aragnay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cimrigaaga oo raaga gil dhalay ayuu ku tusiyaa laakiin waxa baraha bulshada ka socdo waxa ay yihiin mid dhaafsiisan xuduudii loogu talagalay. sababta aan sida u leeyahay waxay tahay wax waliba marka ay dhacaan waxay u baahan yihiin xilliga ay qoyan yihiin in la qabto oo xilliga la soo bandhigo isla markaana laga hadlo tilaabada markaa waafaqsan diinta islaamkana laga qaado. laakiin mar ay 2 bilood iyo sanad iyo 2 sano ay ka soo wareegtay ay dadku badana cabashooyinkooda soo muujiyaan iyagoo baraha bulshada soo dhexmarinayo. dadkan sida dhabta dhibaatooyinka ugu dhacay waxa ku lamaanan oo isku dhax qarinayo kuwa been abuur ah
oo aan wax dhibaato ku dhicin laakiin rabaan inay ka faa'iideystaan hay'ado u doodo xuquuqda dumarka iyo qaybaha jinsiga oo dhibaatooyinka gabdhaha ku dhaca caawiya lacag siiya isla markaana dibadaha u kaxeeya waxa dhab ah oo runa inay jiraan gabdho badan oo dhibaatooyin noocaan oo kala ku dhacay oo la kufsaday oo dhib aad u xoogan loo geystay laakiin kuwa kale oo fara ku tirisa oo dana meesha u yimidna waa ay jiraan waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo documentary aan ka sameeyay sanadkii 2022 imise gabdhood ayaa tiri waa la ii kufsaday isla markaana dadka ay ku sheegayaan in ay kufsadeen ay yihiin dad u dhow aabo adeer abti walaal awoowe waxyaabo la mid sheekada soo dhameystiran ayaan idin soo wada laakiin waxaan rabaa bal gabadhan oo ka sheekeynaysa meedka hooyadeed oo sariirta saaran in abtigeed uu kufsaday inaad ila daawataan oo aad ila dhuuxdaan bal waatan gabadha aroortii markii waagu bariyay hooyaday haday dhimatay habeenkii geeridii intaan la qaadin markii sida u go'day ayaa waxa la igu dhahay de habartay baa tiri gabadh inta igu tiri meesha joogtay geerida bay ku tiri orod oo gabadha yar gurigeyga ciyaalkii u geey ani markaa meesha geerida hooyo markay dhimatay waa la iga kaxeeyay waxaa la geeyay gurigii ma garanaysaa habartay geeridu wayba taalaa meydka lamaba qaadinba waa ooyay waa baroortay deetana waxaa la gabadha yar hala kaxeeyo oo guri kale hala geeyo xoogay sidii bad u kala degto inta meydka la qaadayo xaaladu degaso guriga habarar baa la soo kaxiyay gabadh baa soo kaxaysay waa la soo khasbay guriga habarar baa la keenay guriga habar baan qol baan galay maaragtay aan ku dhex ooyay marka waxaa jooga guriga habar yar caruurtii baa joogta waxaa kaloo jooga nin ma garanaysa ay hooyada xagga hooyo qaraabo ahaayeen maadeer fog ahaayeen oo dibadda ka yimi oo qol deganaa inankii baa soo galay abtiyo see tahay iska aamo hooyo allaha u naxariisto waa la wada dhimanayaa abtiyo waa la wada dhimanayaa ilaahay hooyaha u naxariisto iska aamo aduu laabtu igeliyay siduu maaragtay iisa sabeeyay caruurtii kale markay saxsaxatay abtiyo waa ay kufsaday markii hore de naxariis buu ii muujiyay abtiyo iska aamo waa la wada dhimanayaa kulligan waan dhimananaa cid harasa ma jirto cid noolaanaysa abtiyo ma jirto laabtu igeliyay de naxariis buu ii muujinayay adigu siduu naxariis iigu muujinayay iisa sabeeyay waxun buu igu sameeyey markaa abti way taala geeridii hooyo lamaba qaadinba adigu geeridii markay dhacday meydkii oo markii sida u go'day adigu maghrib oo kale ay hooyo go'day maghrib markay go'day waxa dhacday in la igu yiri inaan ooyayde oo xaafadii isku kacday oo meydkii may dhimatay may ka baxday way ka baxday marka aniga marka ooyay aan muraara dilaacay marka hooyaday de wax u badan anigoo kaliyeetay haysatay oo ubad kale ma jirin markaas waa muraara dilaacay waan cararay hooyan ku dhigay oo laygu leeyahay way ka baxday anigu markaa ma aaminsan inay ka baxday oo wax yar bay hooyo xanuunsanaysay kaligay hooyaday kaligay bay dhashay aabahay anoo yar buu dhintay marka hooyaday kaligay suuqli bay ahayd kaligay bay soo korisay yacni nin dambena ma aysan guursanba markii meydkii sidaa maaragtay la yidhi way go'day go' dusha laga saaray anigii waa muraara dilaacay waa ooyey haddaan ooyey oo muraara dilaacay habareertay dadkii oo dhan baa soo yaacay marka qolkii meydku yaallay baan kolba furaa kolba waan ku cararaa alla hooyo miyadiga dhimatay alla hooyo maxaa kugu dhacay marka adigu habarartii baa tiri gabadh dheer hala kaxeeyo markii gurigii habarar la igeeyey aan habareer gurigeedii aan joogo aan qol halkana ka ooyayo aan iska muraara dilaacsanahay ayaa abtiyo ii soo galay marka abtigu waa nin dibadda ka yimi oo guriga habarar buu qolka deganaa abtigii ruma marka hooyadii lama dhalan laakiin adigu ay ilmaadeer adigu marka abtiba ay soo galay abtiyo maxaa ku helay abtiyo hooyo allaha u naxariisto waa la wada dhimanayaa inagoo dhan baa dhimanana qof adduunkan baaqi ku ahaanaya ma jiro aamus laabtu igeliyey waa sii ooyaa aamus iima yaalo hooyadii baa dee caawa dhimatay oo xabaalaha la geen rabaa sidaa darteed ma aamusi karo laabtuu geliyay wuu aamusiiyey deetana adiga markii dambe caruurtu kala seexseexatay siduu marba iigu soo noqonayay marna u baxayay maaragtay afku igu dhigay uuna i kufsaday abtiyo lama aasinba dee soota gurigan baaba lay keenayba meydkii lama dhaqin lama aasin markaasunbayba dhimatay waa cishaayigii markaa meelahaas marka abtiyo markuu sidii igu sameeyey dadkoo dhan dee geriday ku mashquulsanaayeen anigii waa muraar dilaacay waa naxay
yacni waxaan sameeyey waan garan waayey cidna umaan sheegin waa aamusay markaas aroortii markii waagu baryey habaryar ay noo timi aroortii habarar markay noo soo gashay habarar habeenkii sidii bay nagaga dhaxday baan habaryar ku idhi intaan markaan habarar arkay baan soo booday habaryare guriga hooyaday igey anigu guriga hooyaday baan rabaa inaan joogo ma joogi karo gurigan waxay ku tiri habaryar hooyo waa la qaaday hooyo waa dhimatay allah ha u naxariisto anaad ila joogasaa anaa ku haynaya anaa ku korinaya iskuulkaagii malcaamadaadii baa tegaysaa habaryarey maaragtay waa la wada dhimanayaa qof noolaanaya ma jirto aniga maaragtay arrintan kale iisii raacsano yacni sidii iyo si ka badan baan u ooyayaa markaa habeenkii wuxuu igu yidhi ha isku dayin inaad wax sheegto nolosha anaa kaa saaraya wax walba anaa kuu qabanaya waa ku kaxaynaya tigaabaan ahay adigu habaryarba wuxuu ku yidhi gabadha yar iskuul iyo malcaamadoona ha u dirin ha iska joogto way aad bay u murugsan tahay kolba wuu iisoo galaa lacag buu isiiyaa kolba wax buu isiiyaa markaa abtiyo waxba ha igu samayn baa ku idhaahda waa ku baryaya mar dambe waxaasoo kale ha igu samaynin waxba ma kugu samaynayo iska raali ahaw lacag buu isiiyey cidna ha u sheegin hayabaa idhi anna cidna uma sheegin runtii yacni wax walba waxay igaga weyneyd hooyadayda dhimatay ana mar kale arkaynin abti oo maaragtay midda kale anigu abti rumaan moodayey oo ay hooyadee wax dhow isku yihiin habarartayba wuxuu ku yidhi gabadha yar waxaan rabaa inaan wax u qabto inaan kaxeeyo maraykan geeyo abti markaa maraykan buu ka imaaday mar haddii hooyada dhimatay waxaan rabaa bal inaan wax u qabto waaba lagu farxay arrintii waxaa dharkayga iyo hawsheedii oo dhan baa la galay dharkii baa la ii maydhay waa la ii diyaariyey abti baa halka gacantayga qabsaday waa kan igu yidhi waxaas ma sheegi kartid haddii kale waa lagu caayaya waa lagu ceebaysanayaa wax kasta maalin kasta lagugu caayaya carruurta iskuulka ku caayaysa kuwa malcaamada ku caayaya noloshaada waa u dhammaanaysaa waa halkaasaan gaari ka raacnay ilaa Addis Ababaan tagnay Addis Ababa markaan tagnay habeenkii hotel baan degnay hotel buu kareeyey hal qolna wuu kareeyey hotelkii wuxuu yidhi markaa waxaan ku yidhi abtiyo haddana inaa wax igu samaysid baa rabta maxaa halka qol noo dejisay markaas wuxuu igu yidhi abti waxba ma kugu samaynayo hotelka qolkan keliya ka bannaan hotelka uu buuxaa abtigaa baan ahay waxba ma kugu samaynayo anii hore kugu sheegay aamus iska soo seexo habeenbarkii markay ahayd ayuu wixii habeenkii oo kale igu sameeyey uuna i kufsaday waan ooyey habeenkii laakiin wuu ii hanjabay ribaaxuu igu dhuftay wuxuu igu yidhi ma hadli kartid halkani ma aha meeshii habarartaa joogtay soomaaliyana ma aha mana hadli kartid habeenkii oo dhan rafaad ba ii ahayd kolba iigu soo noqnoqonayay aroortii markay ahayd ayaa buu baxay anna anoo isla markaa uu soo noqonayaa oo maaragtay hawshu sheegaya buu ku gelayaa duhurkii markay ahayd uu soo noqon waayey baan qolada maaragtay rabsashanka u tegey waxaa idhaahday aaway abtigii i waday maaragtay qolkan karaystay waxay igu dhaheen kuma fahmine sug Soomaali baa tahay haa sug kuma fahmine markaa hotel weyn oo xabashi leeyahay buu ahaa gabdhaha Soomaaliyeed wadada maraya loo yeeray tayar bal fahma waxa kugu dhacay aniga nin baa i waday abtigaya maaragtay hotelkii ayuu ila joogay uu iga tegay hadeerna ma garanay meel uu aaday waaba yar tahay bay igu dhaheene maxaa yaa ku wadayo abtigay baa i waday meeye ma garanayo dadkii baa la weydiiyey lacagtii wuu bixiyay saaka uu baxay inay israaceen baan moodina gabadha yarna wuu watay halkiiba gabdhihiiba i kaxeeyey nagu yiri bal ina keen gabdhihii markay i kaxeeyeen maaragtay waan yarahay markaa 12 jir baan ahay iyo xoogay aduu sanadka 13 baan dhexda kaga jiraa markaa waxay igu yiraahdeen ina keen way kaxeeyeen mar alii markii maaragtay aan 2 week meelaha la joogay bay igu yiraahdeen magaalada miyaadan cidna ka aqoonin ma halkanaad rabtaa inaad iska fadhido ani cid ma garanayo waan ku hooyaday way dhimatay aabahay anoo yar buu dhintay ninkaasi wuxuu habarartii wuxuu ku yidhi waan kaxaynayaa gabadha yar maadaama hooyada dhimatay hotelku igaga tegey waxyaalo xunxunna wuu igu sameeyey waxay yidhahdeen meeshan maaragtay shaqiya wax raadso sababtoo ah meeshan keligaa ma noolaan kartid adigu gabdhihii haddana dee weji xun bay tuseeno oo iskaga soo baxay in badan waad dhuuxdeen sheekada gabadhan qaabka ay wax u sheegayso ee dhibaatada ku dhacay 2 jeer ayay ooynaysaa 2 dhib ayayna hal habeen dareemaysaa mid waa geeri oo xaq qadar Allah ah laakiin qofka ku kalifayo in uu ooyo isla markaana u qaadan waayay hooyadii ama aabihii oo Ilaahay uu oofsaday laakiin waxa ku lamaano u dheer habeenkii ay hooyadeed dhimashadeed u ooynaysay in sidoo kale ay u ooynaysay gabarnimadeeda iyo sharafteedii oo lagu ciyaaray dhulkana lagu tuntay hal su'aal ayaan barnaamijkan ku soo gabagabeynayaa waxa uu yahay
maxaa sababa dadka dhibaatooyinka noocaana ku dhaca in inta bahasha ay qoyan tahay oo wax laga qaban karo ama laga gaari karo aysan ka hadlin oo sanado kadib ay uga sheekayaan baraha bulshada. sidaan horey kuugu sheegay waxaa jiro dad kale oo iyaguna ku qaraabanayo si hay'ado ajnabi ah wax ay uga helaan, laakiin waa farakuturis. macnihiisu ma ahan qof walbo dhibaatadan ku dhacay soo bandhigay in uu been sheegayo, laakiin dadka dhibaatadan ku dhacay iyagoo aad u fara badan yihiin ayaa haddana waxaa jiro kuwa kale oo dana meesha ay ka gasho oo iyagu dan kale waxyaabahan oo kale u soo bandhigo. sheekayaan idinku daalin muuqaalkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. waxaan ilaahay uga baryayaa gabadhan in qalbiga uu ilaahay u qaboojiyo. haddii ay cadaaladda dunida ku heli weysan maalintii yawmal qiyaamo way helaysaa hubaashi insha Allah. laakiin qof walba oo kufsi ama dhibaato ku dhaca ee muuqaalkan suuragal ay tahay inuu daawado, waxaan kula talinayaa markii uu ku dhaco dhibka isla markaas in qofka ay soo bandhigto meesha ay ku soo bandhigaysa iyo qaabka ay u soo bandhigaysana waxa looga baahan yahay inay aad uga fiirsato oo dad is leedahay markaas way ku dhicin karaan xaqaaga in ay xilliga ku soo bandhigto. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadiina.